السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوري وضع داوديال waxaynu ka hadlaynaa maanta shan ficil oo ay sababto kalsoonida xad dhaafka ah. Haddii kalsoonidoodu noqoto mid xad dhaaf ah naftaada ku qabta, waxyaabaha ay sababi karto ayaynu kaga warami doonaa barnaamijkeena. Haddii aad YouTube channelka Magan Maxamed ku cusub tahay, fadlan subscribe saar, videogana like saar haddii aad ka hesho, siina share kare haddii aad jeclaato inaad la wadaagto asxaabtaada. Ku soo dhawow barnaamijka. Nigga, back it up. Someone on my cup. If you niggas acting up, what you say? Whole squad running up. Whole squad running up. Whole squad running up. Whole squad running up. kalsoonida xad dhaafka waxay sababtaa kibir. waa ugu weyn sababto kalsoonidaada hadday xad dhaaf noqoto waa xaqiiq inaad noqonayso qof kibir badan. sababtoo ah waxaad aaminsan tahay naftaadu inay kaba sareyso nafaha kale ama dadka kugu xeersan waxaad u arkaysaa dadka hooseeya. sababtoo ah naftaada ugu sheekaysay inay tahay wax kale ma garad. markaa kalsoonidaada hadday noqoto mid xad dhaaf ah waxaad noqonaysaa qof kibir badan. markaa waxaad iska jirtaa inaad naftaada siiso kalsooni ka badan intay u baahan tahay. intay u baahan tahay waxa weeye kaliya intay nolosheeda ku maareyn karto. laakiin wax ka badan haddaad siiso wax ka weyna ayna qaban karin iyo wax ka weyna oo ayna ahayn haddii aad ka dhigto, waxay noqonaysaa qof kibir badan oo dadka iska dhex saaran. dadkuna inta badan kibirka ma jecla, ilaahayna ma jecla. talabaad waxa weeye degdeg. haddaa aad kalsoonidaada xad dhaaf tahay markasta waa degdegaysaa. ficil baad ku degdegaysaa, qowl baad ku degdegaysaa. markaa qofku hadduu degdeg badan yahayna qaladaadkiisa bata. sidoo kale dadku ma jecla qofka degdega badan. ilaahayna wuxuu yiri shaydaanka degdega ma garatay. markaa haddii aad kalsoonidaadu xad dhaaf noqoto, wax kasta waxaad jeceshahay inaad si degdega u qabato. degdeguna ma fiicna ma garatay. ta saddexaad waxa weeye guuldarro. tani waxa la xidhiidha tii hore. haddii aad degdeg badan tahay ama ay kalsoonidaadu kugu kalifto inaad markasta wax kasta si degdega u qabato, ogow waxaa dhici karta inaad guuldaraysato. sababtoo ah guushu waxay u baahan tahay ka fiirsi iyo in waqti la geliyo oo dhinac kasta laga eego. balse haddii kalsoonidaadu xad dhaaf tahay oo tiraahdo wax kasta waan si bilaa ka fiirsi aan u qabanaya, waad guuldaraysan kartaa. wayna dhici karta inaad guuldaraysato, wayna dhici karta inaad guuleysto. laakiin markasta degdeg wuxuu sababa guuldarro. ku xigta waxa weeye nacayb. taafaraad waa nacayb. inay dadku ku nacaan, dadka kugu xeeran inay ku karahsadaan. sababtoo ah Soomaali dadka kale ka qaada Soomaalideena ma jecla qofka yara madax taagan moogta. waxay jecel yihiin in la isla sinnaado. waa sababta dadka horumarka gaadhay Soomaalida horumarka gaadhay loo xagxagto moogta. waayo Soomaalidu waxaa dadka adduunka ka dambeysay qofka Soomaaliga ma jecla inuu horumar gaadho, mana jecla walaalkiisu inuu horumar gaadho. markaa haddii kalsoonidaadu xad dhaaf noqoto, waxaa kusoo wada eegaya indhaha dadka kugu xeeran oo dhan, oo dadka waad ka dhex muuqanaysaa. taasina waxay sababaysaa inaad cadow badan yeelato, dadku ku nacaan ma garatay. markaasaanay dadku kuu nicin, dadkaaga dhinac ka raama maqshay. kalsoonidaadu yaani xad dhaaf noqon. ta ku xigtaa waxa weeye istusnimo. haddii aad rabto inaad aragto qof kalsoonidiisu xad dhaaf tahay, waxaad eegtaa qofka istuska ah. sababtoo ah istusku wuxuu sameeyaa ficilo uu hubo inuu ku guuleysanayo ma garatay. marka kalsoonida xad dhaafkaana waxa weeye inaad waxaanaad qabanayso hubto 100% inaad guuleysanayso. taasina ma fiicna. kalsoonidu waa inay ahaataa waxaan inaad kuna guuleysan karto kuna guuldaraysan karto. laakiin qofka istuska ah markasta wuxuu iska dhigaa qof wax kasta qaban kara, wax kasta ku guuleysan kara, aanay naftiisa suurtagalba ka ahayn guuldarro. marka haddaad doonayso inaad aragto qof kalsoonidiisu xad dhaaf tahay, waxaad eegtaa qofka istuska, waxaad eegtaa qofka kibirka badan, waxaad eegtaa qofka degdega badan, waxaad eegtaa qofka dadka inta badan ka dhex muuqday la neceb yahay ma garatay. markaa barnaamijkeena intaasaynu kusoo koobaynaa. haddii aad ka heshay fadlan share garee, like saar, YouTube channelkan subscribe saar.
aad baad mahadsan tahay. Waa Magan Maxamed Cabdillah. Maca salaama.